isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee gobolka Saraar Dr. Ibrahim Axmed Salebaan ayaa kormeer ku soo maray ceelasha kala duwan ee xooluhu ka cabaan ee ku yaala deegaamada Wadaamogo, Ceeldhaab iyo Oog. isuduwaha ayaa u kuurgelayay caafimaadka guud ee dhanka xoolaha ee deegaamadani, waxaana sidoo kale socdaalkiisan ujeedadiisu ay ku saabsanayd dabagal uu ku sameynayay daaweyn dhawaan ay samaysay wasaaradda xanaanada xoolaha, kaasi oo ahaa muddo 10 cisho ah oo lagu daaweynayay inta badan xoolaha kala duwan ee deegaamada gobolka Saraar. isuduwaha ayaa waxa warbixino kala duwan ka dhageystay dadka xoolo dhaqatada ah ee xoolahooda ay ka cabayeen ceelashaasi, waxaana deegaanka Ceeldhaab warbixin ku siiyay Salebaan Jaamac Ducaale oo ah madaxa xafiiska wasaaradda xanaanada xoolaha ee deegaankaasi Ceeldhaab. aan joogna maanta waxa weeyaan Ceeldhaab, ceelkii xooluhu ugu xoolaha badnaa haddii laba kuure waxaan lagu soo booqday isuduwihii xanaanada xoolaha gobolka Saraar Dr. Ibrahim anagoo ku dhex jirna daaweyntii xoolaha oo iminka isku soo guurguuray haddii laba kale waxa soo saaray in kastaan kiisas waa weyn jirin haddana kale bushima waayaan markay isku soo galaan team Ibrahim iyo teamka waa noo yimaadeen maanta daaweyntaasaan ku dhex jiraa xaaladdu iska alxamdulillah dhulka wuxuu ka yar jirtaa in doogyaar ciideer doog xumo xaaladdu iska alxamdulillah rabbil caalamiin teamka Ibrahim iyo teamka aad baan ugu mahad celinayna sida dhaqsaale maalin walba noo barbar taagan yihiin ama ay nooga warhayaan ama xaaladda ula socdaan. ugu dambeyntiina isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga gobolka Saraar Dr. Ibrahim Axmed Salebaan wuxuu faahfaahin ka bixiyay ujeedada kormeerkiisan. maanta oo bisha tahay 13 oo aanu kormeer sida caadada ahayd kormeer aan ku marayno gobolka oo ah xaaladda caafimaadka xoolaha iyo si ay xooluhu caafimaadkooda yihiin anagoo maanta marayna deegaanka Ceeldhaab oo xoolo badan isku yimaadeen oo dhulka ceelashu xooluhu ka cabayeen taasoo hadda jiraan kormeerkan joojino markasta aan ku marno xoolaha si aynu u ogaano xoolaha caafimaadkeena waayo war laf dhabarka dhaqaalaha in laga warhayo markasta si joogto ah xoolahaas laga warhayo markasta anaguna waxaanu talaabo kasta aan ku qaadnaa oo aan kormeer ku sameynaa aan dardargelinaa timamka daaweynta xoolaha iyo caafimaadka xoolaha in ka warhayno maanta halkan baan ku sugannahay waxaanu kormeerkeedu nooga bilaabmay dhul badan oo marayna dhawaana waxa soo xarooday 2 team oo daaweyna oo 10 cisho oo daaweyna oo gobolka ah soo kormeeray oo ay labada team ay daaweyn ka sameeyeen 10 tuulo oo deegaan ka mid ah dhulka xoolaha badan ah taasana anaguna feedback ka soo noqday iyo xoolihii si ay dadku xooluhu ula jaan qaadeen caafimaadkooda iyo xoolihii aan lawaduna aanu leeginay aan kormeerkeedana aan ku eegnay timanka ayagana ka dabaxnay xaaladda caafimaadka xooluhuna aad bay ku fiican yihiin roobkii dhan qayb gobolka ka deeyeen qaybna ka mudeen insha Allah waxaan rajaynaynaa roob inuu Ilaahay noo shubo taasina waan rajaynaynaa oo Allah ka dhigo xoolo dhaqatada ah taasoo aanu sameeyno bil walba si aanu si joogto ah u ogaano xaaladda caafimaadka xoolaha kana warhayno waayo dhul lagu soo guuray deegaamo badan ay ku soo guureen marka si joogto ah baan doonaynaa inaanu ula soconno markastaba xaaladda caafimaadka xoolaha soo ah in laga warhayo markastaba waqti kastaba saacad walba oo dhaqaalaha waddanka uu ku xiran yahay xoolaheena waa laf dhabar dhaqaale oo ah taasana anaguna talaabooyinkan qaadinayna taasa kamid ah insha Allah waxaan rajaynaynaa kambiinada kala daaweyntu way soo socdaan. Jaamac Boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba.